رئيس وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ku guda jiro la xisaabtanka wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ee tiirka arrimaha bulshada iyo dawlad wanaagga ayaa waxa ay soo bandhigeen waxyaabaha uga hirgalay heshiiskii ay kala saxiixdeen sanad ka hor ee ku aadanay barnaamijka hortabinta u leh iyo hadafyada laga doonayo in ay xaqiijiyaan guulaha ay soo bandhigeen wasaaradaha muddadii sanadka ahayd ayaa saldhig u ah ufnaan iyo isla xisaabtan taasoo dhabaha u xaaraysa Soomaali ku dhisan sinaan cadaalad horumar iyo gaarsiinta dadweynaha Soomaaliyeed adeegyada ay u baahan yihiin wasaaradaha ku midaysan tiirka u shaqeeyay horumarinta adeegyada bulshada kor u qaadida caafimaadka iyo waxbarashada xuquuqda aadanaha daryeelka qoyska xoojinta dhaqanka iyo diinta kobaca fursadaha dhalinyarada ilaalinta deegaanka kor u qaadida wacyigelinta bulshada iyadoo loo marayo warbaahinta bahda dhaqanka iyo culimada Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa wasiirada mid u weydiiyay su'aalo ku saabsan waxyaabaha uga hirgalay yoolashii ay dejiyeen ee sanad ka hor la wadaageen shacabka Soomaaliyeed si loo qiimeeyo isla markaana hore loo sii wado guulaha la gaaray mudane Xamse ayaa uga mahadceliyay wasiirada shaqada baaxadda leh ee qabteen ayaa hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in la sii dardargeliyo shaqada loona joogteeyo isla xisaabtanka laguna hormariyo hufnaanta hay'adaha dawladda